nebigu waxa uu yidhi alaa unabbi'ukum bikhayri acmaalikum wardadii howma idiin sheegaa camalkiinna waxa u khayr badan wa askaahaa cinda maliikikum ilaahayna agtiisana u barako badan oo u nadiif badan wa arfacihaa fii darajaatikum derajooyinkiinnana kor idinku qaadi kara waa camal haddaad samayseen derajooyinkiinna kor u qaadi kara wa khayrun lakum min infaaqi dahabi waalwariq idinkana khayr badan inaad lacag bixisaan oo dahab bixisaan oo sadaqo bixisaan baabuu idinka fadli badan yahay wa khayrun lakum min an talqaw caduwakum fatadribuu acnaaqahum wa yadribuu acnaaqakum idinka khayr badan inaad cadowga la kulantaanoo qoorta aad ka jartaan iyaguna qoorta ay idinka gooyaan oo jihaad la galo la dagaalamo qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala dikru llahi tacaala nebigu markaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa aan idiin sheegayaa waa xuska ilaahay la xusayo subxaanahu wa tacaala waxaasoo camal ah ayaabuu ka sii khayr badan yahay oo ka fadli badan yahay buu leeyahy rasuulku sala allahu calayh wasalam sidaa daraaddeed baa markii xajka lagu jiro soomka lagu jiro jihaadka lagu jiro mar walba dikrigu mid laga tegaya maaha waa nusuusta tilmaamaya fadliga dikriga faa'iidooyinkiisa buu inoo sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo fadligiisa waxaa ka mid ah haddaad ilaahay xustaysna uu ku xusaya marka xuskeenna waxaynu ku gaadhaynaa inuu ilaahayna xuso xuska ilaahay baana ka qaalisan keenna inuu ilaahay ku xusaabaa ka weyn inaad adigu isaga xusta waladikrullaahi akbar xuska ilaahay addoonkiisa uu xusayo ayaa ka weyn ka